بسم الله الرحمن الرحيم لمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا خدك تليفونك كوتشرتا شكري عبد الله الشيخ عبد الرحمن هو يضا إن أنت لقو حد قدبي لقونا حد قدبي ديغانك قول دوغب إن أنت مقعد وحا ليدا هذا رضوان سحرديد وحانا إنوغو الرميسة هو يديد وغو هرين وحان ويدينينا بل انت أنا ويدين فالكان يسيدو ودعاي ويدينينا بل وحا أيمكا يكون ضميسو حالة عافيمات شكري بل نوغو ورن حالة عافيمات رضوان ولا حالة عافيمات رضوان وحاوي آد وقف داوحة كورية بدن كيالي حس كذا يمسكح كذا قاعد كراسوين بدن يسوق قاعدين شركة المال خمسة أو سيو ملحن كورية هبدا أو دران إلا يحد داوع وعن سكونين جاري متعدد لكن يسدد إشاع أيام نختار كشرنا بكا دعا حديك على الكعيو عاصمة كذا بنراعي إلا يحد ولي ما مدري من عاصمة بنراعي هوا مير قطع مروي مير جرسوم إيشا مرضنا على كشوان تايمه waxaad ka warantaa falkan sidoo ku dhacay markii ugu horeysay gabadha yar oo soo guriga ka soo baxday oo gabar kaleento dhaweynayso oo soo socoto markay wadi dhaweysay ka soo noqotay dhaxda laga wiil oo yar intuu istaagtay mariyaha kaga dhageen intay iska fujinaysay gaari yimid gaarigii baa gabadhii lagu ritay gaarigii muustig baa laga daaray waa lala cararay laadiya la geeyay arrinka foosh xunta lagu sameeyay ayarga gabadhii kooma iska gashay ilaa xad mudadan baa raadinayna gurigayna raadinay meel ka baxalweynay kadibna waxaa loo sheegay iyadoo uu soocaayay sakaraad galkaayo ku ayada nala hadashay oo tiri aniga arrinkaas ay ugu dhacay mana soo socdo mana idin imanayo meesha sakaraad ku ahay oo dhibaatadaas ay gaadhay jirguliyada sarfaadkaas hooyana ma sheeganayo aabana ma sheeganayo sixin baa la ii galay waqaasaas baa igu dhacday meeshiida may iyadoo sakaraada ninka qaaday nin baa qaaday annagu way naga cararayn oo mana sheegin markii gaalka ayaa la keenay kabacdi bayadu nala soo hadasho telefoon reeradayii nagala soo hadasho falkani goormuu dhacay misaa ka soo wareegtay 12 bishii 12 oo sanadkaas ku xirmay toddobadeedii u dhacay toddobadeedii toddobadeedii waan gartay maantana waa bishii koobaad 16keedii waan gartay sidee buu warkan loo helay maxaa hore loogu sheegi waayay maxaad u gaarsiin weydeen muxuu ahaay dadkii falkan samaystay cidda wax ka qabanaysa ee maamulka haysata maya gabadhu way caraday hadday naga caraday waxay qabtay warkamaan nahay cidna nooma soo sheegin kaamarad baa laga duubay ayadana way iska caraday ilmo yaroo qalbafo ku dhacay bay ahayd inuu maskixiya ma jirogay oo qalbadii jabtay gaalkaayay soo gashay markaa kabacdi annagana soo wacdo waxay tiri hooyo dhibaatadaas ay gaadhay ilmana soo socdo way kaasaa gabdhahan u dirsooday markii gaari soo raacay gartaana ugu yimid markaasay dhakhtar la kulantay markii raggii yani lagu dhaqaaqay kaamaradii ay soo saareen ayagaa weliba gacanta u fusaashelay kaamaradii bay soo faafiyeen kaamaradaasa lagu baraarugay kamarada fiidiyoyadan muuqaaladan laga soo geliyay baraha bulshada marka ma iyagaa soo geliyey nimanka falka sameeyay baa soo geliyey ayagaa soo geliyey ilaahay baa shilay oo marka iyagu miya ku faan bay ka ahayd markay soo gelinayeen maya waxay ahayd gabadhan gabar yar bay ahayd oo ilaa iyo xad iska adag oo ilaa iyo xad lasoo weeraray 10 jeer horeento iyagu lafkooda soo weerareen oo ay ka soo caraday oo in badan ay daba joogeen haddana waxay rabeen inay kaamarada xugmiir ahaan u haystaan oo ayada ku bahdilaan oo aysan gabadha ay sheegin bay rabeen makara ha waxay doonayeen muuqaaladan inay ugu hanjabaan marba ay yidhaahdaan kaalay haddii kale waan faafinaynaa saasay ahayd marka ilaahay xaqaas kallidu ka cadeeyey arrinkee ilaahay baa fashilay iyagii baa soo saaray isla markiiba hal nin baa bixiyey qolaba qolo indhiis isla markiiba maxaa tidhi yani huwa nin baa saaray hal nin baa saaray isla markiina waa la faafiyey oo dad qofka uu sii dhiibay waan gartay kaa faafiyey muxuu dhigay facebook u dhigay mise waa laga xaday isaga laftiisa
ما صاحبتي بو دري سيدابو فيديو كفافي يقول علي سيدابو مقال كفافي naag buu ku shubay markuu naagti u shubay naagti way sii faafisay ayagana markii dambeeta kuwii kalaa dhigay facebook ها waxa weeye qofku ku kalsoonaa gabadh buu u diray gabadhiina way sii faafisay dadkaasi misahan falka foosha xun geystay lixnin bay ahaayeen shan baa hadda la hayaa ina uu carray meel u jiro lama garanayo kulli gabadha way ku xadgudbeen nin daayay mara dilka kufsiga muxuu kaamarada kulli mid buu dhiibay oo isku xaquuq bay ahaayeen kulligood dhaawacyada ay soo gaarsiiyeen maxaa ka mid ah walaala laba tooreey baa ku taalo oo midna tahay daqayda iyo muxuu lafta xandillaha kumay dhicin tooreeyda saasay u geliyeen oo ku soo jiideen midna waa xagga gudaha gudaha xagga fara badan oo dee aan la soo tirin karin oo midoobaad oo wadnaha qaar kaga yaallo jirkeeda dhan ku faafay oo ka wardhihi karin oo la tirin karin madaxa tooreeyada madaxoodii baa ku dhacay oo saa ugu dhigteen nabaro badan oo dee hadda yani gudahooda la garanayo way ku yaaliin oo badan maxaa sababayay inay iyadu inanta ay toore la dhacaan iyagoo gacanta ku haya maxaa ku kalifayay way dagaashay way ka qaadi waayeen way ku bateen way la dirinday inay isdiibtay damceen oo isdiibi weydeen mashaan ka xigaabay tiri ilaa iyo xad dila geeri baan ka xigahay geesinimay u hadashay kor bay u qaadeen dhulkay ku dhufteen dhulka ku dhufteen inay miyir beesha ka xigahay way la dagaalantay ilaa iyo xad way miyir beeshay iyadoo meyda bay ka qaateen iyadoo meyd oo miyir beeshay bay ka qaateen markay miyir beeshay bay ku xadgudbeen dadkaasi yaa gacanta ku haya imika dadka xadgudbay shanta ah mid baa maqane mid baa carabay oo meel jira la garanayn hadda ilaa hadda shantii ninna waa la hayaa familigoodii baa hayo qolaba gabadha qolay adeeradeed ah iyo niman badan oo tiro badan baa hayo guddi lagu sheegay oo yani ayaga guddi ahaan looga dhigay inay ammaankooda sugaan oo yani nimankaas ay safaqaan meesha dawladda miyaanay ka jirin miyaanay saldhigyo miyaanay jirin miyaanu maamul dawladeed ka jirin dawladdu maxay gacanta ugu qaban weyday dawladda gacanta kuma aysan qabanin inay ku qabato way damacday haddana ma aqaano way noqon weyda inay gacanta ku qabato arrinkan arrin yani ay dhamaysan karaan qolada xagaagay way ku wadaan oo shareecada diinta islaamka in la waafajiyaa la rabaa ma garan waan gartay hadda shareecada diinta islaamka aan u fadhinaa hadda in la waafajiyo oo yani aan sidaa ku qancno oo nimankaa falkaa sameeyey aanan marna laga harin oo aan shareecada diinta islaamka ku qaadnaan doonaynaa haddii ay suurta gasho oo iyagu yani aysan meel kale nala aadin saasaanu doonaynaa anaga waalidka inantan 10 jeer oo horetay isla handadeen baan ku yiri inan yar oo iska adag bay ahayd oo ilaa iyo xad aanan jeclayn inay ay ku faracayaanaan waxay damceen inay ka helaan meel garan iyo meel gaariya la aadaan way iska celisay markay faraha la soo galaanba way iska caabi jiday xoogeeda isaga caabi jiday kadibna mid ayaga ka mid ah bay isla dagaaleen way isla xewaykaadeen markii dambe shaarkaas markan dambe say ku qaateen markan dambe dee gabar bay dhaweynaysay baan ku yiri adiga muddo 2 saaca gabadhii dhaweynteedii bay ka timid waa la qafa 2 saac waxaad ka wadaa bacd al-cishaa oo kale soo maaha markaasaa la dafay meel bay diyaar ugu markaa maxay ku qaateen ma gaari ma gacmaha maxay ku qaateen laba nin baa istaajisay oo yada jeedisay oo ku dhegdhegtay oo kuudka qabatay oo la dagaashay intay la dagaalamaysa gaarigii gaari baa la keenay markii dambe gaariga kusoo meeshii bartii ku dagaalamaya kusoo daakimay afkaa la qabtay waa lagu tuuray waa lala tegay ayadii gabar kalaba waan gartay ma isleedihiin nimankan guddida ah ee gacanta ku haya waxay waafajinayaan shareecada islaamka maya waanu yiri noo waafajiye waanu wax kale ma doonaysa ku
مدرعنا ما دونينا إدراك ما دونينا وحب دونينا إن شريعة الدين الإسلام كلمة كان الله باكستان دونينا وحكرا وما نبيبا شاكا خليل وخليل ومالك طبعا ما دونينا كاسان هذا من معي هذا تيما سوينا marka miyaa gacanta u geliyay iyaga see loo qabtay nimankan وقفت تريكسا كياني waan gartay marka ma waxa lagu wadaa yani waxa sheegaya warar baa imika la isla dhex qaadaya oranaya waxa lagu qaabka dhaqanka Soomaalida ee khaldan ayaa lagu dhameynaya oo waxa weeye xaal baa la kala qaadanaya arrimahaas jira maxaa ka jira oo inantiiba waxa loo guurinaya mid kamid ah inamadiiba ayaa la sheegaya iskada buurbuuri waxaa ku aan xasino oo aan saamixno ilaa 30 sano haday yaadhaca oo maanta la soco oo ay hooyanimadii iskaadiyaan oo yaaliga iyo saamidaan oo intay sheegaysaa ila kastaan arna yeelay ama yeelay kalaama aan yeelay ma dadka leeyahay ma shariicada diinta islaamka waxay naga siisaa diyaar la nahay in loo qaado hadii loo qaado inuu Soomaaliyeed iyo islaamka man waxa ka codsanayaa in arrinka garab ugu siiyaan oo shariicada diinta islaamka meel kasta ay jirto looga siiyo imika xaaladeedu ma soo wacnaanaysaa Ridwaan Saxardiin هذا كله إلا لحد وأفضل في داوع وين سيدي هنا ويدا أنت وهذا داوع يهرب معاً لكن حاجة مسكية معاً وقبضوا قلبضوا وشبتل وقلبضوا كان مثلا وطمرنا عادي مرنا ويبدل المساء marka ilaahay baan ka rasuulnaa ilaahay inuu soo qalbadooda noo هذا يدو mahadsan tahay umada Soomaaliyeed way idin garab taagan tahay wayna ka wada xun tahay falkan foosha xun ladin geystay loo geystay inantaada Ridwaan Saxardiid taas waxay ahayd Shukri Cabdilaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo hooyada inanta lagu xad gudbay dhacdadii foosha xumayd kufsiga ahayd ka dhacday Goldogob waxaana kamid tahay baan filayaa gaalkacayo ما سنتي واحد لسه وسيني ورئيس كان أنا جوا عبد الملك الشيخ مسعود دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.